ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. gacantii lagaa waayo, carabkii lagaa waayo, qalbigii lagaa waayo, noloshaada marka maxay tahay marka hadafkaaga iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kaaga mid dhigi lahaa ummadda khayr badan. Marka arintaas aniga waa ka fikiraya, waxaan isdhahay walaalahayga aan la kaashanaya, adiga ayaan ku kaashanaya, awalna Ilaahay baan kaashanayna, afwan Ilaahay ayaan kaashanaya, Ilaahay ayaan weydiisanaya wax qalbigay ku jiro aan la jeclaan walaalahayga in ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii fuliya oo ah inay soo hanuunaan, inay wanaag isticmaalaan, inaysan aamusin, inaysan haday wax xun ku hadlayaan iska dayaan wax fiican ku hadlaan ama ay iska aamusaan. Lianna rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa wuxuu ahaa man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyakhul khayran aw liyasmut. Marka arintaas ayaa rabaa in idin wadaag walaalayaal. Waxaan u maleynayaa hadafka iyo micnaha dhan waad fahanteen maadaama idinkii ku dhahday YouTube samayso, YouTube-na aan samaystay. Marka YouTube-ka maadaama aan ku badnayn, marka hadda arkay waxaasi carabkayga iyo maskaxdayda iyo aragtidayda way ii siin weysay inaan ka aamuso. Haddana waa ku qaldanahay inaan arrintaas ka hadlaa, mana aha inaan shakhsi duraayo, horaan idinkugu sheegay. Waxaan ka hadlayaa camalka niman inaaga isdhex wadaaya, heesaayo, riwaayada dhigaayo, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku caasinayo, waqtiga la dayacayo. Haddana waxaa ka wada daran arrinta kusoo gabagabeynaya waxay tahay dhalinyaro wadanaha, aan dhalinyaro ahay, adiga dhalinyaro tahay. Dhalinyarada sanadka waa la ogyahay, qof walba YouTube ayuu samaysan. Wuxuu ka hadlaa, qof wuxuu ka hadlayaa heeso, qof wuxuu ka hadlayaa inuu dadka kala duro, qof wuxuu ka hadlayaa maalmihiisa. Video arkayay dumar, laba dumar arkay run ahaantii qaabne si waa u cabiri waayo wanaaga ay meesha ku jirto. Waxaa arkay mid ka hadlayso adduunka raba inaa u dalxiiso, inta inaa ka baxo saana la sameeyo, guriga saana loo sameeyo, inta laga baxa wadankay dagaysa baba midoo kale sida make up loo sameeyo, saana loo sameeyo baba su'aalay soo weydiiya, reer is dagaalay baba waxaas ka hadlay nolol maalmeedkayga shiishada maanta ka shiidan tahay inta waayo baba waxaa la sameeyaa prank iyo waxaalahaas oo dhan waqtiga ku dayacaysa. Allah subhanahu wa ta'ala raali kama ahan. waa lagu weydiinayaa waqtigaaga, waa lagu weydiinayaa cimrigaaga, waa lagu weydiinayaa cilmigaaga, waa lagu weydiinayaa wax walbo laajli dalika. Allah subhanahu wa ta'ala maalinta yawm al-qiyaama, hada mawduuc wax yar ka baxo, maalinta yawm al-qiyaama Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay iqra kitaabaka, kitaabkaada aqri, kafaa binafsika al-yawma alayka hasiiba. ada isku filan maanta kitaabkaada aqrisanaysaa, waxaa arkaysaa marka camalkaas oo samaysatay, waxaa kusoo hadli jirtay waxyaalahaas oo dhan. Marka arrinkaas ayaa maanta doonaya inaa idinla qaybsato, igana raali noqda. horaan idinkugu sheegay anaka walaalahayga khayr ayaan la jeclaa, khayrka aan la jeclaa dartiis ayaa arrinkan ii suurtagelisay inaa idinla qaybsada. marka maxaan isku caawin karnaa? tiim ha aamusin, Ilaahay xus ayaan ku caawin karnaa. saldhigeena meesha ayuu noo noqon karaa, maadaama raggaasi ay ka dheeraadeen Allah subxaanahu wa ta'ala. Ilaahay aan kusoo celino, saa Ilaahay kusoo celin lahayn waxaan leenahay ha aamusina, Ilaahay xus. waxaan hubaa qofka hadduu maalin walba Ilaahay xusaa wuxuu wada uu iska daynaya. laajli dalika xuska oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xus waxaa ugu weyn salaad ayaa ka mid ah. Ilaahay wuxuu yiri inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. salaada waxay ka reebaysaa fahshiga iyo munkaradka ka reebaysaa. qowlu nabi sallallahu alayhi wasallam waxaa kamid ah saxaabada kamid ah oo qamri soo cabi jiray oo markuu saxaabadu imaan saxaabada karahsadeen bil aadna aan karahsanina, laakiin rasuul sallallahu alayhi wasallam kana mualliman, kana rahmatan lil alamin. wuxuu yiri iska daaya, Ilaahay iyo rasuulkiisa uu jecel yahay, maalin maalmaha kamid iska daynaya. hadduu mar imaanayo oo ka tagayo ama salaad tukanayo, salaada ayaa ka reebayso. laajli dalika waxaa leenahay walaalaheena khayrka la jecelahay, wanaaga la jecelahay, aad iyo aad aan wada jecelahay. haddaan la jeclaan lahayn wallahi kamaanan hadli lahayn, sida dadka kale iska fiirsan lahaa waa qosli lahaa, walaa ka shidan tahay bilaay saas ayaan dhihi lahaa, shaytaankii nafsadooda usii qurxin lahaa, hawada ay geli lahaayeen. arrin kaleetan waxaan rabaa inaan idinla qaybsado, kusoo gabagabeynaya. walaalaha ka mid oo caqli badan ayaa la kulmay oo ahlu diin ah oo jecel in diinta faafiyo oo sidaas oo kale camal. wuxuu igu yiri walaalnimo waxaa rabaa inaa heesahay noqdo. markaas waxaa ku dhacday maxaa dhacay? dadka heesa dhan shan diska oo dadka dhan wada raacaan heesahay noqdeen. maxaa hadafkaaga u yahay markaad heesahay noqotay? hadafkayga wuxuu yahay heesahay noqona, heesa badan soo saara. marka heesa badan soo saar oo dad badan helo, intaasoo kun oo YouTube-ka iga daawato, haddana soo yani waa isbedela qof wanaag iyo khayrka lagu yaqaan ka dhigaa say dadka ii raaceen dhan ay isku bedelaan. haddana markaas waxaa ku iri akhay nolosha horta meesha ay jirto Allah subhanahu wa ta'ala ayaa og. intaasna ma aha caqli gal, laana ina dadka u sameeyay daraadood wax xun oo Ilaahay raali ka yahay lama ogolo. laakiin
niyadda markii la fiiriyo waa niyad wanaagsan markay dadka soo galaan haddana in ilaahay ugu yeero waa iska niyad fiican inkastoo aysan ahayn wado fiican oo la maro laakiin waxaa leenahay allah subxaana watacaala ayaan ku daynayna dadkas waan u ducaynaynaa marka intaas ayaan doonaynaa idin qaybsado wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la soco fiidiyoyaal cusub tiim ha aamusin ilaahay xus ayaanu nahay baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran